نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا وقيبتي لحادي قصدي نبي موسى عليه السلام قيبتي هore waxay inoo joogtay iyadoo Israa'iiliyiintii nabi Muuse la socday ay ka codsadeen nabi Muuse inuu xal u keeno sababtoo ah waxa gadaashood ka soo ereenayay Fircoon iyo ciidankiisa hortoodna waxa ahayd bad hareerahoodna waxa ahaa buuro aad u dhaadheer nabi Muuse calayhi salaam wuxuu Israa'iiliyiintii xilligaasi u sheegay inuu alla weyn u sheegi doono meel ay ku baxsadaan sababtoo ah nabi Muuse calayhi salaam wuxuu aad ugu kalsoonaa rabbigii قال كلا إن معي ربي سيهدين. markii Fircoon iyo askartiisii aad ugu soo dhawaadeen oo wax yar u jirsadeen Israa'iiliyiintii ayay dadkii bilaabeen in qaylo af labadii ay yeelaan oo xal xumaaday oo arintii cuslaatay oo ay soo dhawaadeen Fircoon iyo askartiisii iyagoo careysan oo ciil qaba ayna u dhantahay hubkoodii iyo qalabkoodii oo indhihii ay bilaabeen inay wareeraan qalbiyadiina ay soo gaareen dhuunta waxaana nabi Muuse calayhi salaam halkaas ugu yimid waxyigii oo ku leh ku dhufo badda ushaada فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. waxaa la yiri waxay u kala baxday badii 12 jid waliba ama dariiq walba waxa loogu talagalay mid waliba oo jilibiyada Israa'iiliyiinta ahaa biyihii waxay u istaageen sida buur dabadeed waxaa kacday dabeel oo qalajisay jidadkii ay mari lahaayeen Israa'iiliyiinta si ay halkaasi ugu maraan si fudud markii ay badda kala baxday oo samaysay dhabo ingegan oo la maro Muuse calayhi salaam waxa lagu amray inuu dadku ku hogaamiyo dhabahaasi saamarkaas ay dadkii la socday nabi Muuse calayhi salaam waxay bilaabeen inay galaan badii waxayna aad ugu faraxsanaayeen farajkii oo alla weyn u furay waxay indhahooda ku arkeen badii oo bixisay wadooyin waxa markaana ka dhaadhacday inay badbaadeen saamidkoodii ugu dambeeyay waa Israa'iiliyiinta ee uu soo galay badda ay ciidankii Fircoon ka soo dabagaleen badii nabi Muuse calayhi salaam wuxuu markaas damcay inuu ushiisu ku dhufto mar kale badda si ay ugu xiranto wadada cadowgii alle laakiin alla weyna baa ku amray inuu u daayo badda xaaladeeda ama sideeda si ay awood ugu yeeshaan Fircoon iyo ciidankiisa inay soo galaan badda واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. oo u dhaaf badda iyada oo degan oo qaybsan xaqiiqdii iyagu waa ciidan la hafinaya macnaha alla weyne wuxuu nabi Muuse ku yiri u dhaaf xaaladeeda badda si aan ugu dagno ciidanka Masar markii uu nabi Muuse ugu tagay badda xaaladeeda oo Fircoon uu arkay inay marayaan wadadii laga jeexay badda waxa gashay cabsi daran wuxuu markaasi ogaaday inay tahay mid ka timid xagga rabbiga Muuse markaasina wuxuu ku dhici waayay inuu gala badii wuxuu markaasi bilaabay inuu ka qoomameeyo xumaantiisii hase ahaatee wuxuu ciidankiisa u muujiyay wax ka duwan dareenkiisii oo ku yiri bal eega sida ay badda igu kala baxday si aan u soo qabto adoomahaygaas iga baxsaday Fircoon dhab ahaantii ma doonayn in askartiisu uu la galo badda wuxuu doonayay in iyaga kaliya uu ku amro inay badda galaan oo ay soo qabtaan nabi Muuse calayhi salaam intii la socotayba haddaba sida la soo wariyo Jibriil baa wuxuu ku yimid muuqaal nin faras saaran oo soo agmaray faraskii uu Fircoon saarnaa uu aad ugu soo dhawaaday markaas uu Jibriil halkaasi badii ka galay halkii laga kala dhambalay waxa gadaashii soo raacay oo badii soo galay faraskii uu Fircoon saarnaa Fircoon wuxuu isku dayay inuu faraskiisi ka celiyo dhanka badda laakiin waa uu kari waayay ileen waa faras amran
askartii fircoon markii ay arkeen fircoon oo baddii ku sii socdaa ayay iyagayna ka soo daba hoobteen markii ay dhammaantood soo wada galeen dariiqii badda laga furay ayuu alla weyne muuse ku amray inuu badda ku dhufto ushiisa isla markiiba uu ku dhuftay baddii ushiisa waxay ku laabatay badda sideedii hore oo hal qaf lagama reebin oo kama harin fircooni intii la socotayba ilmihii Israa'iil markii uu alla weyne ka badbaadiyay fircooni ciidankiisii oo fircooni ciidankiisii alla weyne uu ku hafiyay baddii oo midna uusan ugu tegin alla weyne dhulka waxay taasi ku tusinaysaa awoodda sare ee alla weyne aanan xadka lahayn laakiin dadka badankii waxay doortaan inaysan raacin ama aysan adeecin alla weyne وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين waxaan ka gudbinay ilmihii Israa'iil baddii saa fircooni ciidankiisii baaraacay oo aabii cadaawad darteed u qabay ilaa markii ay badda hafinteeda heshay fircoon markaasi wuxuu yiri laa ilaaha illaa huu cidina xaq uma laha in la caabudo isaga ma ahee midkaas oo ilmihii Israa'iil ay rumaysan yihiin aniguna waxaan ka mid ahay muslimiinta kuwa isu dhiiba rabitaanka alle آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين oo haatan baad rumaynaysaa halka aad diidday inaad rumayso awal waxaad ka mid tahay mid ka mid ah mufsidiinta xumaanfalayaasha wax baabi'iyaasha iyo wax la mid ah فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون maantadan waxaan ugu soo saari doonaa jirkaaga muutan yacni meydkaaga dibadda badda si aad ugu noqoto calaamo kuwa imaanaya adiga dabada xaqiiqdii in badan oo ku jira dadka waa ay ka dhoohan yihiin aayadahayaga xujooyinka caddaymaha qodobada casharada calaamooyinka waxyiga iyo waxa la midka ah aayadahani waxay inoogu waramayaan sida fircooni ciidankiisii loo hafiyey oo badda dusheeda ay ugu dul sameeyeen sidaasi oo kale markii uu fircoon u arkay inaysan jirin agab ama meel loo cararo aan alla weyne ahayn ayuu ku dhawaaqay inuu rumeeyey alla weyne caza wajalla uuna yahay midka xaqa lagu caabudo wuxuuna fircoon muujiyey markaasi inuu toobad keenay waxayse ahayd waqti aan toobada la aqbalin sida laga soo wariyay Cabdullaahi ibn Cabbaas inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka soo wariyay markii uu fircoon uu yiri waxaan qirayaa inuusan jirin ilaah xaq lagu caabudo aan ahayn alla weyne in markaasi uu jibriil dhoobo badda gunkeeda ama salkeeda hoose ka soo qaaday oo afkii fircoon uu ku guray isaga oo jibriil ka baqayay in fircoon ay haleesho naxariistii alle oo sidaasi uu ku badbaado نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين القصص النبوي قصوينك نبيذا